السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنالك عثمان بانشر. halkaanina waxaa idinkaga soo gudbinaya barnaamijka aniga oo ah Ustaad Cusmaan Cabdulqaadir Banjar. waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka soo fahmnay xarfihii shibanaha iyo shaqalka aan isku xireynay ee farqoraalka afka Soomaaliga. maanta waxaan qaadanaynaa xarfaha ugu dambeeyo ee isku xirka shibanaha iyo shaqalada. waxaan qaadanaynaa maanta xarafka loo yaqaano ha. xarafka ha-da ah waa xarafka ugu dambeeya xarafka ka horeeya. marka waxaan baranaynaa sida loogu xiraayo shaqalka anagoo marka hore ku hormareyno shaqal gaabka, kadibna waxaan geli doonaa shaqal dheerka, kadibna waxaan u gudbi doonaa xarafkeena ugu dambeeya ee ya-da. marka bismillah aan bilowno. xarafkan aad arkaysaan waa xarafka ha-da ah. xarafkan ha-da ah marka hore waxaan ku dareynaa shaqal gaabka, kadibna waxaan ku dareynaa shaqal dheerka. okay markaan shaqal gaabkan ku dareynaa ha, he, hi, ho, hu. markaan waxaan ku dareynaa shaqal dheerka ha, he, hi, ho, hu. waxaan u maleynaa inaan fahmnay xarafka shaqalga ha-da ah sida loogu daraayo shaqal gaabka, kadibna loogu daraayo shaqal dheerka. markaan waxaan sameynaynaa isbarbardhig. marna waxaan akhrinaynaa shaqal gaabka, marna waxaan akhrinaynaa shaqal dheerka. ha, ha, he, he, hi, hi, ho, ho, hu, hu. waxaan u maleynayaa inaan aad u fahmnay xarafka ha-da ah. haddana waxaan qaadanaynaa xarafka loo yaqaano ya-da, waana xarafka ugu dambeeyay oo 26 xaraf ee shibanaha. marka xarafkan ya-da ayaan qaadanaynaa anagoo ku dareyna marka hore shaqal gaab, kadibna waxaan ku dari doonaa shaqal dheer. ya, ye, yi, yo, yu. markaan waxaan ku dareynaa shaqal dheerka ya, ye, yi, yo, yu. markaan waxaan sameynaynaa isbarbardhig anagoo ku dareyno shaqal gaab, anagoo shaqal gaabka ku dareyno, kadibna shaqal dheerkan kusii dareyno xarafka ya-da ah. ya, ya, ye, ye, yi, yi, yo, yo, yu, yu. marka waxaan u maleynaa inaan af Soomaaliga aan fahamnay sida loogu dhawaaqo xarfaha shibanaha, shaqalka, kadibna sida la iskugu xiro shibanaha iyo shaqalka. haddaad intaas la socotay wax fiican ama wax badan aad ka fahamtay. haddii aadan la soconin fiidiyowyada ku jira playlistiga, fadlan dib u raac cashirka ugu horeeyo ilaa iyo cashirkeenan oo aan maanta qaadanayna oo ah cashirkii 13aad. halkaas ayaad kala socon karaysaa. marka cashirkeena 13aad halkan ayuu inoogu egyahay maanta insha Allah. kadibna waxaan geli doonaa sidii xarfihii aan soo baranay shibanaha iyo shaqalka ah aan uga dhigi lahayn eraygaasoo ah ama noqonayo mid macno taaban doona insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.